maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo بلوتينada dawladdu soo saarto مثلا waxyaabihii aynu soo dhoofsanay January ilaa June 2019 oo bulletin dawladdu ay faafisay wixii aynu wadankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019 ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsanay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsanay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsanay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsanay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsanay in ka badan 10,000 oo darsin oo beed ah beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd 87 January mid bay ahayd ayaan Djibouti tegey dabeetana waxaan arkay Djibouti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay wadankan dhan beedkii uu cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Itoobiya ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdo iman jirayo khudaarta wax lagu karsado dhan waga aad baan u yaabanaa ma wadan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonaya taanigoo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan u baan ko 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu ku idhi China ma intaasoo 1 kiiloomitir bay noo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona wargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mid ah lagaaga keeno dabad waa wax aad u cajiiba waxaan eegay إحصائيات كدولة دو صار تبان هيك بلغات كهذا اللي ينوكينه مركان إحصائيات كان كور رميو كما ورميو وحي السوق مدول لو كينه كما ورميو وحي إنه قيمة أنت إنه دولة دبانو شجنا إنه سكالو صار ضعف إنه أما وحي عشور ضعف كإنه كوكيني أما وحي حدودها ترى ده بدل لك صاقله وحي كور رميو قات كقولة كصاقله محي قلبات كصاقله halka lagu soo cashuuro 6 bilood ayaa waxaynu cunay 19 milyan oo kiilo waa 6 bilood waa 19 milyan 454 kiilo oo qaada 6 months ayaa intaasoo qaada aynu cunay oo Itoobiya laga keenay وحماش انت سوى انت الدولة دو عشورتي لكن ده حدود ده دير واتقانين إلا هالك كسو قلقات مال والبا باديو دنبو با قبل ده برو دنبو تقا مال كستو تقا هو سومالي وين كما ورمينا وانت يرى انو تشوغنو ايان كورمينا ايا وسو قلي سكالي 2 مليون او كيلو لحب لو طلعوني هاو ماتش باكو بحي اذن
mushkiladani maaha mushkilad yar dadku say u sawirayaan ma haddaan akhriyo dhaatada halkan ku qoran ee ay dowladdu soo saartay waad cajabi lahayd dadka waxaa cunaya GDP-geenu waa imisa wax soo saarka waddankuba waa imisa 2012 World Bank iyo dowladdu waxay soo wada saareen inuu ahaa 1.4 billion wax soo saarkeenuba kuwa hadda ugu badaya waxay yidhaahdaan 2 billion laakiin masaadir waliba sources aad loo ictimaadi kara maaha laakiin World Bank iyo dowladdu kay soo wada saartay wuxuu sheegayaa intaa waxay sheegayaan ihsaayaadka qaarkood cajsiga مثلا ihsaayada hore dowladdu soo saartay deficitka ku jira tijaaradeenna waxaynu soo dhoofsanay waxaynu dhoofino 205 milyan ayaa 6 bilood gudahood deficit ku yahay almost waa 5 nus bilyan deficit aynu ku jirnaa lacag ku dhow say tilmaamayaan taa macnaheedu waxa weeyaan iyadoo beer capital wax soo saarkan iyo dadkeena marka loo qaybiyo waxa ku qiyaasaan qofkiiba $740 ba sanadka dhan kugu soo hagaagaya dad minis maalintii $1 ma heshid sanadku waa imsa maalmood 365 waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo xisaayaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka saddex baa inaga sii dambeeya iyana baktiyey waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi saddexdaas ay inaga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180aad baynu nahay waddanka 180aad dad minis 179 waddan baa inaga horeeya runtii ihsaayaadkan ama dowladdu soo saartay ama World Bank soo saaray ama waxa kale soo saaray wax la akhri karaba maaha Soomaalida kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin midhaha waxay soo sistaan oo qori agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano مثلا boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tobacco-daynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tobacco-daynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tobacco-da la keeno sokorta la keena waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tobacco-da la keena waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay أيها الأحبة إذا دوني دولار لنكا كوشرا إننا ينهل كاتشوغنو أي الساداشة مستقبلكم حيتي نمكي دوني دا بيتش كمدوشي دي شري وحيلي تدقو بدن دونا قاتشادونا والله بدن دونتا باهدا عنا دا تدقو قدن دونانا بغل كيبا كونتون 2030 غندو بغل كيبا كونتون با عنا دا لقادشة دا أي بدن دونتا نموذج الزراعي la socdaana bay leeyihiin ma badna cunada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhaddar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay واحد من كل ثلاثة سوء تغذية بك عبان دونا reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050 ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan dad minis beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doona kuwanina waa suu nadiir dambe inta hadda joogta markaa waa ka sii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya
والسياسة وذا كولي ومشاكل كالجرالة ودادان جيد يقويان ميان جيد بيرينين نقص الإنتاج وحسو ساركو دادو يري انت الشاكيان اي كبادانتا انت الشاكيان marka dambana aan system waxay u store gareystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn sulukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ha al-ustaad Izzuddin Umar professor kamida professorada dhiga waxyaabaha kan الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا يحصل صار كله كردية وعبادة beeraha kani waxaan la beeraya waa nooc min alcibaada hadduu qofku ku talagalo culture-ka aynu u noolay ama si qaldan wax loo cunayo ama wax qaldan la cunayo in wax laga bedelana waa zuhdi buu leeyahay waxaanad u baahnayno tiro badan le inaad isku gurin waxyaabaha intaajka is-hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay فقرضة يكوى وحيسته وحاول دحيا إن للصاير أنا وقضية إيمانية تطوعية وحبحينية تكافل كسليسا وحانا مصا ما ينكربوا لمنهج كالله لقاتمو يعني وخبير نكاني كم دا خبرة دا وين بروفيسور دا وعندك لكن وحولاية سيستم كقولي وحن ودا الدبولي كراه وسيستم إسلامية لكن سيستم كإسلامية إنه شيء محبوبة هي ما هنا مساجد سوب حسام بو بهاي صلاة بدون تكتان نعم هذا إلهي حقوق بردان إلهي ويدا أرزاقية لكن ده إلهي مساجد كفريستو يبري مورن بريسكا صوت عضانية كما تعالى قرانك كما تعالى هو حقوق بهاي أدوات الإنتاج كان هنا إنه حاجة بدله dadku sidoo fakaraya qaab nololeedka in wax laga bedelo wax soo saar ummad la inay noqono taasi waxay u baahan tahay buu leeyahay kow in la helo markas cilmiya oo daraasaad al-amn al-ghidaa'i baaritaan ku sameeya inaga aqoonta inuu baranaana maxay u badan tahay jaamacadkeena maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh sheega business management maxaa business inaysaa gaaja u waqtiyaysaa يعني إنه محصول صار لحوشيه وامد كلامنا وقضية تخطيط بوليه مستقبلك سياسة الدولة ده إيه ورنا ماذا حبنان إيه بالشوين توينا يلاتو خطة مستقبلية دتك كان سيدا فقر جواب بحلهاي إنه خطة نوام حي وهيئات دنيا هالنسوق قاعدانيو سواء كماها إن dawladdu NGO-yada ha ogolaato NGO-yo badan hal la keenay war waxaas dadka sii gaajaysiiya balad ku dhargay lama sheegin waladan cadada meelahan maraysa waxay wadaan dunida wadan intay tageen dhargay lama hayo faqrun bala sii qaadaa waa kuwa afartii neef ay dhaqan jireen inta ka soo ururiyeen boolasha waageeray yiri waxba la idinku siinaya gaajaday beeraan ولذلك هو أحدهم باقري بوك لا يراده محي صناعة الجوع بقري مدي بوك لا يراده قاتشة السمين تيد سيدا قاتشة دوريد الله أبو روكا والرمية إياك ما قمي إنه دي وحي نولي نيلي مسيتاني وحودي بيسيتان سوماها هذا غاربايد هذا وين قد العنا يوم قد العنا نادرك مكسوقاتي وحودي بيسيتاني وحد قاعد لدي بيسيتو waxa u baahan inaynu fakarnaa wuxuu yahay inaynu inagu wax la soo baxno ninba wax soo qaato cunaya war maaha waxaynu u baahanay waa maxay waa inaynu inagu keena kan wax kala soo baxno inaynu takhtiid sameynaa baynu u baahanay hadda daraaso kooban lagu sameeyo fi suurati Yusuf qisatu nabiyullaahi Yusuf wa min ahsan alqisas fi alquran wa qissa runtii
adab leh oo cilmi leh oo akhlaaq leh oo bulsho leh oo fan kastoo cilmiyo laga warramo ka warramaysa qisadaasi nebi yuusuf waxaa ka mid ah riyadii ugu dambeeyey oo xabsiga ka soo saartay riyadii ugu dambeysay oo xabsiga kaga soo baxay yuusufu ayuha sidiiqu aftina في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون إلا يلقى قاري وفيه يعصرون قصة إلهي وحكا ورميا تخطيط يودجيي نبي الله يوسف عناصر التخطيط الاستراتيجي الغذائي دمان تدبي لهيد بيلي أو حكا ورميا sida wax loo kaydiyo ee cunada loo kaydsado iyo intaajka sida loo fiicnaysiiyo iyo istihlaaga sida loo tarshiidiyo ayuu ka warramaysaa qisadu waxay ka warramaysaa 7 sannadood in wax la beerto markuu fasiray oo si fiican wax loo beero dhulka waxay ka warramaysaa wixii la beertay sidii aanay u baaba'een loo kaydin lahaa ee kayd uu geli lahaa waxay ka warramaysaa waxa la cunayo istihlaagka sida loo tarshiidin lahaa si xun loogu falaadeen innaga marka caanuu bataanna waa la qubi jiray marka jiilaalkana waa la gaajoon jiray saxiixa ma ahay yani waa dad wixii ay soo saareen kaydsan kari waayey farsamo garan waaye ee u kaydiyaan yani caanaha geela haddii halkaa la iska dhigo oo ay karuuraan oo markay karuur dhaafaan kolba biyuhu laga shubo oo faarkoo qura la reebo faarku waa canaboodhe dabeetana way wadhaan carabtiyo way engejiyaan aqadkay sheegaan waa kaa ana geeleenna caadiga ee la daadinayay haddii inta halkaa la dhigo uu karuuro kolba biyaha un laga daadiyo karuurka soo hadha la faarka futkiyo faarka soo hadha la wadho oo la engejiyo dabeetana haamaa lagu cabaysto canaboodhu noqon lahaa hadhow biyuun baa lagu dari lahaa laakiin dadku haddii aqoontu ay baabaha noqoto documentary film baan daawaday ka warramaya neef aan dhalin oo geela oo niman carbeed caana ka maalayaan weligaa ma maqashay hal abeera oo aan dhalin oo caana laga maalayo intay hashaa farsameeyeen oo waaleen bay ka dhigeen inay dhashay oo dabeetana neef yar waa ka xidheen oo sankii afka farsamadii siday u wadeen waa maaleen un hashii markii dambe يعني بني آدم كو أقونتو يسدري بني آدم سيدا أوجد نبي الله يوسف قصدي سوحي تلماميسا سيدي وحلو كيتسن لها يا سيدي وحلو بيران لها يا استهلاكا سيدي لو إرشادين لها سفي عن بني آدم كو استعمالي لها ألمن الغذاء مركها وقضية لما مولك روح رنتي wax badan oo aan soo qoray waa hayaa laakiin waqtigu salaadii waa gaadhay waxaan rabaa inaan war ku soo koobo dunidu loolan bay ku jiraan loolanka ay ku jirto duniduna say u noolaan lahayn bay u noolamayaan bini aadamkuna baryo kuma dhergo dowladnimana kuma dhisanto waxaynu u baahannahay bulsho ahaan culture-keenna inaynu wax ka bedello dowlad ahaanna siyaasaadkeenna oo investment iyo wax soo saar inaynu wax ka bedello wax dad dhul intaa leeg haysta oo roobu da-o oo gaajoonaya ceeb weeyaan dad dhul intaa leeg haysta oo basal iyo baradho iyo yaanyo iyo xataa quuto daruurigii kale dhaaf waxaas waxay soo dhoofsadaan la soo degaan waa ceeb runtii maha wax laga warrami karo waan iska dhaafay wixii ku saabsanaa xisaayaadkii vegetableska iyo waxa kan ku saabsanaa ee dawladdu soo saartay oo iska daayay waayo waa ceeb ummad wax haysato baahan oo wax kastoo ay liqdo le dabadaanu ka keenaynaa حتى waxay nucno waxa ugu badnaan jiray canjeelo waxay maraysaa canjeelada wixii laga sameeyay in dabad laga keeno waxa ugu liita dunidana aynu quud ka dhigano daqiiq cad
iyo bariis iyo baasto saddexduba sumtooda ay ka badan tahay waxtarkooda caafimaad lahayn wax soo saarkeennii garow iyo galley iyo maxaa la yidhahdaa digir iyo wax la midana ma jiro ma soo saarno haddaynu soo saarnana dee farsamaynan u garanayn xataa bariiska waa layna baray saa loo iska dhex kariskareeyo wax cunay weligiin ma leediin garow isku dhex karisaa dunida waxaad helaysaa garow isku dhex karisaa oo hilib lagu kariyey maraq oo aanad ka go-aynin markaad cunto laakiin waynan garanaynin inagu farsamo waxaynu ka taaganay dheri inta dabka la saaro biyo lagu shubo biyahaasi markay kululaadaan wax lagu rido biyo kululun baynu wax ku ridanaa soo maaha hilib cad ku rid bariis ku rid baasta ku rid oo biyo la kariyey waayo waa qondaro يعني soomaalida meelaha ugu faqrisan kijadooda ka mid ah bay yiraahdaan waa min afqar الناس kijadooda ay faqirtay ma aha wax la cunaa inaanay oolin waa wax la sameeyaan la garanaynin waayo cidna wax lama barin marka ayuha alxiba inaga gaajayna ma haysee farsamo xumaayna haysa aan dib u fakarno وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشارو haddii safar loo gali jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaan wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra